gudoomiyuhu uu yiri waxa lagu sameeyay qiimeyn dib baana loogu tartamaya taas waa walaacas weeye ayaan leeyahay xisbiga uu tartan buu soo galay doorasho soo galay kal fadhigii golaha dhexe ee xisbiga uu waa ka weeye warqadiisi gudoomiyaha ayaa saxeexay waxay ku socotaa warqadaasi komishanka qaranka Soomaaliland waxay ku socotaa xeerarayha guud ee qaranka Soomaaliland waxay ku socotaa gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda asxaabta soo gudbin go'aamadii kal fadhigii golaha dhexe xisbiga uu waxaana ku saxeexan gudoomiye injineer Faysal Cali Waraabe kal fadhigaasi xilligaasi la qabtay waxa laba qodobada ugu waaweyn lagu ansixiyay waa kuwan waxa la ansixiyay heshiiskii labada garab ee xisbiga uu ku bahoobay ayaa lagu ansixiyay waxa kale lagu ansixiyay musharaxiinta madaxtooyada ku tartamay xisbiga oo halkaas ku cad oo qodobka labaad ee kal fadhiga saxaafaduna xor bay u tahay in aragto kal fadhi la galay oo golo dhexe oo fadhiistay oo sharciya in haddana saxaafadda ka yiraahdo gudoomiyuhu tartan baa loo gelaya waxba la qiimeynaya waa mid dalqaafa oo walaacsa ayaan leeyahay gudoomiye shuruucdii xisbiga ayuu jabiyay laftirkiisu awoodiisana uu ka talaabsaday gudoomiye awood buu leeyahay awoodiisana maaha cid musharaxa noqonaysa cid aan musharaxa noqonin xisbigu sharci buu leeyahay xisbiga wuxuu kala qaybsamay hoggaanka xisbiga iyo musharaxiinta sidii aan ku heshiinay qayb baan anagu hoggaanka xisbiga ku lahayn sida Mujaahid Cali Gure xogayaha guud iyo dad lamida ayaan ku lahayn musharaxiinta xisbiguna gooni weeyaan laakiin xisbigii ucud waxaad moodaa in qoorta uu iskaga doobay gudoomiyaha xisbiga oo dhaqaaqi kar laayay mar walbana uu saxaafadda la soo istaagayo hadallo isburinaya oo khalkhal ku abuuraya maxay ahayd taageerayaasha xisbiga waana ta sababtay in musharaxaygii Cabdirashiid Xasan Mataan aan saaxiibka ahayn inuu adkeysan waayo oo uu hal ka huleelo oo isagu yiraahdo waraan uu adkeysan kar maayo iskaga tagay anu maanta halkan waxa ka cadeynaya anu meel la tagi maayo ninka ugu dambeeya tareenka ka kacaya aniga weeye inuu Faysal meesha iga tago mooyaan ugu tagi maayo maanta taa horta ha ku biyaad ayaan leeyahay waa ta koowaad weeyaan xisbiga uu tacbaan naga galay waxa weeyaan waa la ogay sida lagu soo saaray maalintan anagu Faysal u tagnay afar qof baa la joogay Faysal Cali Waraabe xafiiska ayarna wuu fadhiyay xisbigii sidoo uu dhamaa gebigiisa wuxuu ku beeray xisbiga wadani xisbiga siiro baan ka soo dhisnay bilo gudahood baan intaas oo xafiis ku furnay waxa weeyaan in xisbigii la carqaladeeyo ma in lugta la jiida maaha maanta waxa soo baxaya kolba hadallo iska wadaba oranay Faysal hadaanu isagu qadarinaynin heshiiskii waa wax sharciya wuxuu bedeli karaya maaha madaxtooyada looga yeedhin maayo cid musharax u noqonaysa xisbiga ucud waa wax go'aan ummadeed weeyaan waa wax dhacay weeyaan anigu meel alaaliyo meel aan tagayana ma jiro Cabdirashiid Xasan Mataan waa saaxiibkay waxa uu ka hadlayna waa runtii weeye waan ku waafaqsanahay go'aamadii waxa ila ka hadlay kuma waafaqsanaysa inuu xisbiga ka carro inuu la dagaalamo ayaan filay oo ilaa all the way ula socdo ayaan jeclaa ku eedayn maayo waa saaxiibkay shakhsi wuxuu leeyahay hami buu leeyahay sidoo doonu sameyn karaya laakiin waxaan leeyahay waxaan ka jeclaa in dalkan wixii aan doonayno inaan ka bedelo inaanu tareenkayga ga degine ilaa all the way la socdo ilaa haddana daanu saxaafadu maan ka maqlayoon iscasilaadiisa laakiin wax waraaq uu soo gudbiyay anu ilaa hadda ma hayo musharaxa tagada madaxweyne ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucid isagoo si wada hadalkiisa waxa uu ku eedeeyay xisbiga kulmiyay sidoo kale xukuumadda uu hogaamiyay madaxweyne Axmed Silaanyo inay ku hawlan tahay sidii ay u burburin lahayd xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucid anagu waxaan u aragnaa hadallada uu gudoomiyuhu ku hadlay waxa keenay ana u sheegay shacabka Soomaaliland waa burbur oo xisbiga kulmiye uu dabada ka wado oo gudoomiyahana loo adeegsanay weeyaan Soomaalida waxa ku mahamada hunguri wadkii ma arko hunguri wadkii ma arko oo waa hungurigaas war xisbiga ucud in loo arko in la burburiyo ma dimuqraadiyadda in la burburiyo ma waan ognahay waxa jira waan la soconaa shacabka Soomaaliland uu ka wada dhargsan yahay xisbiga kulmiyana hadduu saa isugu sheegay xisbiga ucud baa sida ku burburmaayo gudoomiyuhu wuxuu shalay khilaaf ma jiro taas waa mid xaqiiqad ka fog weeye gudoomiye isaga khilaafka abuuraya mar walba hadalladan iska daba meeraysanaya oo kolba ku hadlayo waa hadalla khilaaf abuuraya oo sharciyadii xisbiga jibinaya awoodihiisana ka talaabsanaya madaxweyne gudoomiyuhu ninka ma weyna waa gudoomiye
xeerka xisbiga ayay ku taallaa halka uu awoodiisu ay tahay nin musharaxana ma bedeli karo cid musharaxana ma keeni karo annaga kalfadhi xisbi baa lagu doortay kalfadhiga golaha dhexe xisbiga ucud ee shanaad baa lagu doortay oo taa go'aamadeedii xeerlaalinta iyo shuruucda dalka oo dhan way haysataa dalka yaan la manshar habaabin cid bedeli karto oo ilaahay aan ahayn ma jirto xukuumadda hadduu isku halaynayo gudoomiyuhuna waxaan leenahay Jamaal Cali Xuseen keligii maaha 120,000 oo cod baa xisbiga siiyay oo magaca iyaga iyo sharaftayda iyo karaamadeeda ku siiyay